soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ku guda jirnay cashiradeenii ahaa advance tips and tricks uu leeyahay Adobe Illustrator CC waxaan hore u soo sameynay laba cashirka koowaad waxaan ku soo sameynay sida aad shape u sameyn karto adigoo advanced techniques isticmaalayo cashirkeennii xiga wuxuu ahaa sida aad u sameyn karto logo dib ugu sameyn karto adoo isticmaalayo mathematical way ama hab xisaabeed adoo isticmaalayo cashirka maanta aan qaadan doono waxa waaye annagoo ka iman doono mathematical way annagoo ka iman doono laakiin looga dib u create gareyn doono annagoo isticmaalayna optical illusion wax loo yaqaano ama indhaheena annagoo markaas ictimaadayno waxa kale jiri doono hab kale oo fudud oo laakiin cashirkan kan xiga noqon doono oo markaas halkaas waxaan uga bixinaa qaabka loogo ama luntay ama aadan haysan markaas aad dib ugu sameyn lahayd waa saddex cashir oo isku xiran cashirkeenan maanta marka waxaan dib u sameyn doonaa loogadan ayaan dib u create gareyn doonaa annagoo isticmaalayna wax loo yaqaano optical illusion waa iska ilaaweyna wax loo yaqaano mathematical waxa waaye waa cabiro kan ku dar oo aan la bedeli karin hadda laakiin indhaheena ictimaadina ayaga noo noqon doono xisaab ayaga noo noqon doono haduu ilaahay yiraahdo shaqada koowaad ee qaban doonto waxa weeyaan waa in aan xirna markaasi shape-ka waa in aan xirna waa sawir aan ka keenay markaasi Google ka keenay waa sida arkaysaba markaan soo zoom gareyna waxa galay jajaba galay file-kan original aan create gareyn doonaa si shape-kan aan u xirno waxaan tageynaa object waxaan dhahaynaa log selection ama si fudud oo shortcut waxaan taaban doonaa command 2 ama control 2 inta kadib waxaan u baahanahay inaan sameeyno circle ama ellipse tool si aan u sameeyno waxaan taaban doonaa shortcut keyga loo yaqaan L inta kadib waxaan draw gareyn doonaa circle-keeni anagoo hayna markaasi option iyo shift anagoo hayno ha ka weynaado haduu doono waa iska normal greenka xogaa waa aragtiduusan ku wanaagsanayn waxaan ka dhiganaynaa markaasi yellow nooga dhig kadibna stroke nooga dhig marka ayada ah intaa kadib aan indhaheena anagoo isticmaalayno ku align gareyno designerska qaarkood waxay markaasi sheegaan in loogada Google ay wax ka qaldan yihiin laakiin waxba kama qaldano loogada Google marka la sameeyo waxaa la isticmaalay wax loo yaqaan optical illusion oo lama isticmaalin mathematical lama isticmaalin that's why marka aan cashirkanba ugu soo qaatay muxuu ahaa ay sheegaan wax ka fahanno qaabka markaasi opticalka wax loogu design gareeyo sida arkaysid way ka yara baxsan tahay waxay ka baxsan tahay markaasi circle-kii aan sameynay ka yara baxsan tahay okay inta kadib circle-keena waxa uga baahanahay inaan markaasi u sameeyno copy ka sameysano anagoo scale-kiisina markaasi yareynayno sida hawsha loo qabto insha Allah cashirkan hadii aad ilaa iyo dhamaadka aad fiiriso waa baran doontaa waxaan tageynaa scale toolka marka koowaad isagu on ma aha oo waxa laga yaabaa rotate inuu saaran yahay laakiin waxa tagaysaa falaarta yarista then kadibna scale toolka waa kana ama shortcut-kiis oo ah S taabo labadaba waa sameyn kartaa double click dhig kadibna inta kadib waxa laga yaabaa kan uusan on ku ahayn on ka dhiga preview si waxa aad sameynaysa aad aragto waxaan ka dhiganaa taqriiban 60 oo kaleete inta nooga dhig kadibna waxaan ka sameyn doonaa copy inta kadib v taabo si aan alignment-iga wili wax yar ugu yara saxsaxano alignment-igana wax yar saxna u baahanayna si edge-ka uu noogu fariisto soo dhaweey soo zoom garay okay inta kadib waxaan u baahanaynaa marka line segment tool u baahanaynaa line segment toolada aan u baahanahay marka waa inaan si carefully u draw gareyno si wixii hadhow aysan nooga noqon markaasi noogu dhicin mismatch uusan noogu dhicin okay ilaa iyo barta uu ka qabsado ka waan sameynay kadibna barta hadana nooga soo qabo intersect-ga kala noogu qabo kadibna barta ka soo qabo intersect-ga kala noogu qabo kadibna barta waa meeshii ay xarafka jiida uu ka xirmayay intersect-ga kala noogu qabo inta kadib waxaan u baahanahay laba line segment tool oo markaasi dhaadheer waan dhaafi karnaa laakiin waxaan isku dayaynaa insha Allah in cashirka aad u soo koobno oo cashirkeena uusan dheeraanin ardayda qaarkood waxay ka cawdeen cashirka inuu yara dheer yahay marka line segment tooladeena sida isugu keen xirxir marka ayada I hope in markaas hawsheeni redrawing-ka ay noo dhamaatay kadibna waxaan u baahanahay inaan shape-keenan isku dardarsano marka ayada
okay isku fur ka isku fur kan halka iyo halka isku fur halka waa inaan jarraa ama baarinka inta kadib hawshii waxaan u maleynaa inaan dhameynay marka aad doonayso marka shape-ka aad xirtay inaad furto waxaan kali ku dhihi doonaa barta ay muxuu ay sheeg qofulka uu ku xiran yahay kadib marka inta kadib hawsheeni way noo qabsoontay 95% waxaan noo harsan kaliya waa midabayn ama midabadii markaasi inaan ku furo barta kore waa red waxa ku xigo intaasi yellow ayaa ku xigo oo qaybta dhexe waa yellow sida caadiga looga ogtahay kadibna waxa ku xigo green oo barta ayaduna waa green kadibna waxa ugu dambeeyo oo xarafkeeni jiida uu ku soo xirmaya blue waxay la tahay in logadii oo sideedii markaasi oo original ah oo aan wax jajab lahayn oo vector inaan create gareynay oo sameynay cashirkan haddii aad bilowga ilaa dhamaadka aad daawatayna waad awoodi doontaa inaad looga walbo sidaas oo kale aad u create gareyso ama aad u sameyso uma baanin image-kaas oo waan ka maaranaa logadii Google dib ayaan u create gareynay dib ayaan u sameynay iyadoo original oo vector oo sideedii intaan cashirkan cashir lamid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadino iyo nooli kulanto